السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وإذن سلامي وحان إلهي إذن كجرجينيا عمري دير عافماد سوغان عبادة وناكسن وحان إذن رجينيا وحول بقاد هيسان إناد كفر حسنتهين وحان إذن كرالي قلينيا إنان إذن كمشغولي مالمهان سيدي أن كوبالاناي وأهد أسبوعي مر وفهمي كريسان هويو معركتي وحيابو بدن قورتو وجران marka waxaan rabnaa in la wadaago insha Allah hadii ay baa wada la idmo waxaan isku dayayaa in hadii Ilaahay idmo maalintii hal wax ee aan diirada saaro idin la wadaago waxaas oo noqon karo ama dhiirigelin ama xasuusin ama wixii kale oo la mid ah marka insha Allah laakiin se hadii aan marmar idin kala soo daaho ama idin ka iloobo iska kay cafiyo waayo waxa sidaan hore idin kugu sheegay waxa ahay hooyo waxyaabo badan qoorta ugu jiro balse jecel inay wax walba wanaag ah idin la wadaagto marka insha Allah sida tan ayaan ku bilaabayaa biidnillah bismillah maanta waxaan rabaa inaan diirada saaro cafiska sidiisaba waxa weeye inuu qofka markuu wax cafinayo diyaar u yahay 100% cafiska waa wax adiga iyo ummadda faa'iido u jirto عافس معها معنيه سينا هذا قفكي واكو عفيي هاي مع سلامة واكل تغني وعافسك وإناد عافسيد قفكي مركا عافسيدنا وإناد اسكا إلوذي أو اسكو دايدد وحاس إني دعين أو كلاء كسو قادد انتي أود هذا أدقاء مركو حاس كو دايسا إني وحاس دعين با أما آد هداي دعين حتى آد ترتيب إلوذيد أما آد وحي اسكا إلوذي سوابتو عافسكو حواناك ويهاي haddii wixii kugu dhacay aadan afinin waxaas waxay noqon karaan wax kasto wax dhibaato ku soo maray ama qof ama shay ama wax adika xanaajiyay aad uga xumaatay aad afin weysay marka afiska muxuu muhiim u yahay ilaahayga weyn waxidka ayna abuuray waa qaafurur rahiim haddii ilaahayga awood lahaa uu afinayo oo yahay wax kasto dambi aan ka galnaano ko bini aadan oo daciifa oo afinayo bal adi isku noqo isweydii maxaa adiga oo bini aadan ah oo daciif ah qof oo wax ka ma aragtay ama wax kugu dhahay ama wax kugu sameeyay ama wax ka sheegay aad u afin laadahay siiba qofkaas haduu ama afis ku weydiisto ama xataa waxaba ka sii ajar badan sida shiyuuqda noo sheegeen qofkii asagoo afis ku weydiisanin ina afisid marka wax isku dayaysaa habeen walbo hadii ay baha wada la idmo intaada seexanin ka hor in wadnahaaga in maskaxdaada aad qashinka ka tirtirtid qashinka maxaa waaye qof kasto dib ii dhaawac ku geystay inaad dhahdid ilaahayow qofkiin ku weydiisaneen qofkiin ogeen aad dhahdid ilaahayow qofkaas waa iska cafiyay waana iska iloobay wax kasto igu sameeyay khayr igu badal sababtoo hadii aad wax afin weynin waxa adiga khasaarada kuugu sugan maxay tahay khasaarada kuugu sugan waxa waaye maskaxdaada boos ka buuxinaysa waa sanduuq amal maskaxdaada maskaxdaada hadii sanduuq aad soo qaadid oo maanta aad galisid maxay ahayd kabdacas oo bari aad galisid xijaab bari dambe aad galisid turwaal bari ku sii xiga aad galisid maxaa aragtay boorso maalinta ku sii xigta aad galisid maxay tahay shaati u sii wadid way buuxsamaysaa samaha ilaa oo buuxsamaa samaha sanduuqa ilaa uu buux dhaafo oo soo daato marka maskaxdaada iyo wadnahaaga nacayb iyo xanaaq iyo dhibaato baa kasii buuxsamayso oo adiga wax faa'iido ah kugu jirin culays bay ku saaraysaa si fiican uma fakaraysid markii ma aragtay dhibaatooyinka iyo wixii kugu soo dhacay aad niyada ku haysid sidaas darteed waxaad faa'iido kugu jirto mar walbo inaad isku daydid inaad afiska completely afisid qofka marka afis oo afis oo aad ku ilowday afis oo aad afisay ka bacdina aad ilowdayba ka soo qaaday adoo waxaas ilowday oo hore u dhicin oo kaleeto sida ognahayne ilaahay insha Allah qof hada afisid ama markuu ku weydiisto ama ayako ogeenaad afisid insha Allah biidnillah ilaahay dartiis waxa laga yaabaa inaad intaas yar jannada aad ku gashid marka intaas maanta inaad la wadaago in soo xasuusiyo muhiimadda ay leedahay afiska iyo inaan la iloobin oo la dhaleelisanin oo la yareysanin in maxay ahayd qof wax nagu sameeyay ama waxna dhex mareen aan niyada ku haysid maskaxdaada iyo wadnahaaga
ogow qofka ugu koowaad ee dhibka iyo dhaawaca koowaad ay siinayso inaad qof aada cafinin waa adiga. qof kale ma dhaawacayso, qof kalena ma dhibayso, adi unbay ku dhibaysaa, adi unbay ku dhaawacaysaa. sababtoo ah waa adiga qofka niyadda xun ku haayo qofka kale wax kale, waa adiga qofka mar walba ku fakaraayo, waa adiga qofka mar walba gocanaya waxa. soo marka maxaaba fursad u siinaysaa shaydaanka iyo qurunka iyo qashinka fursad u siinaysaa? maxaa maskaxdaada iyo wadnahaaga quruxda badan ilaahay ku siiyay aad iskaga buuxinaysaa? maxaada iskaga iloobayn? bal isweydiintaasoo dhan. midda ugu muhiimsan oo ah adiga ilaahaygii kaa weynaa oo waaxidka ah oo dunida iyo dadka ku nool oo dhan abuuray iyo wax kastoo ku nool, haddii uuna dhahay qalad kastaa gashaan waa nacfina ya cafis i weydiist waa nacfina, maxaa adoo bini aadan ah u cafin lacdahay dadka? taasi waa midda kale aan raba inaan wax yar kusoo taabsiyo waxaa ahay, maadaama hadda lagu jiro maanta waxaa waaye 6 April 2020, sidaa ognahay dunida oo dhan maxaa ka qaylisiiya, maxaa ka walwalsiiya, maxaa cabsi i qalqal geliya? cudur yar oon la arkaynin, oo la dareemaynin, oo la taaban karin, oo la urin karin, oo dadki dhan waa aragteen intaasoo kumanaan intaas meel walba ka dhimanayso oo daawona loo helin. taas maxay ku tusinaysaa? taas waxay ku tusinaysaa bini aadanka iyo daciifnimadiisa. maxay ta dunida hormartay hadda dunida aan joogno kale waxay ku faanaan inay dunida dhan ay ka gacanta ku hayaan, balse ilaaha weyn oo waaxid ah waxaa la tusay, waxaa dhammaanteena la tusay, inkastoo awalba ogeen, balse waxaana la soo xasuusiyey in bini aadanka uu daciif yahay, in bini aadanka maaragtay si kastoo qani u tahay, si kastoo u aqli badan tahay, si kastoo u aqoon badan tahay, si kastoo maaragtay heer u gaartid, bini aadan masqusha taga aad tahay, bini aadan afka wax galiya aad tahay. adoo afka wax galin maalintii masqushaasna tagin way adkaanaysaa inaad noolaatid maalmooyin kadib. taas waxay ku cadaynaysaa inaad tahay qof ku noloshiisa dhan ku xiran tahay inuu wax cuno iyo inuu masqusha tago. soo marka sida anaga dhan ognahay waxaa muhiim ah inaan is cafino. waxaa siiba muhiim ah maadaama hadeertaan la ogeyn qof kasta naftiisa meesha loo soo jiro. qofkii maxay ahayto sida ognahay ramadaan uu soo dhow yahay, shacbaanka lagu jiraa waxaa maqlay bisha shacbaan dad badan oo maxay ahayto oo ramadaanka ilaahay ugu talagalin inay gaaraan inay ka tagayaan. marka isku day qof kasta aad og tahay oo adiga qalad ka gashay inaad dhahdi cafi. qof kasta oo adiga qalad kaa galane inta ay ka ku weydiisanin aad dhahdid waa cafiye hebel iyo heblaayo iyo waxaas iyo waxaas. sababtoo ah adiga ayaa khayr kuu soo galaya, adiga ayaa wadnahaaga nadiif kuu noqonaya, adiga ayaa maskaxdaada kuu furfurnaanaysa, adiga ayaa guul iyo maxayta iyo horumar iyo janno iyo farxadba ku gaaraya taas. marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin walaalayaal. waxaa inoo balan ah insha Allah inaa maalintii hal wax oo xasuusina idiin soo galiyo, ama ha ahaado subaxii hore ama habeenkii haddii ay baha wada la idmo. haddii aadin kala soo daaha ama aadinka iloowana fadlan iska kee cafiya. sida hore idinkugu sheegay hooyo aad mashquul u ahay. waana mahadsantihiin adinkana fadlan nala wadaaga wax kasta ood isleedihiin walaalihiin la wadaaga, ama tusaale ah ama xasuusin ah. insha Allah kulligeen waa isku baahannahay, far kaligeed fool ma dhaqdaa la dhahay. waxa aad ku jiiftid dadka la soo wadaag insha Allah. waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. kusoo dhawaada channelka Is-Anfac. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe iyo like saar iyo share haddaa awoodid. ilaahay ajri abaal ha kuugu bedelo. fadlan isku day in maaragta aad naga warhaysidna wixii tusaale ah iyo dheeraad ahna commentka kusoo qor adiga oo aad iyo aad u mahadsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa inoo mar kale oo xiise leh haddii ay baha awood la idmo.